النبي يوسف عليه السلام ولاله انتي مكري يشرقول وسميين اي عيل bay ku rideen dadna niman socota oo safar ayaa ceelkii kala soo baxay Aziz Masr marka boqorkii Masr haysanayay ay ilmihi yara ay ka iibiyeen dadna sidaas uu Nabi Musa alayhi salaam Nabi Yusuf alayhi salaam aqalkii boqorku ayuu markaa sida ku galay muddo 20 sano ilaa 30 sano ku dhawaad Nabi Yusuf alayhi salaam aqalka boqorka ayuu ku noolaa oo wuxuu iska noqday maaragtaan wiil boqor oo kale ayaa loo arkay boqoradii ilayda gurigeeda uu deganaa ayaa wiilka yar dhalinyarada waliba quruxda bani aadanka kala badh asaga kaliya la siiyay ayaa tamac ka galay beeladaan culimadu quraankan ilaahay ku sheegay aqalkii boqorku ku noolaa intay kulli albaabada oo dhan soo xidhatay markay aragtay ninkan dhalinyarada quruxda ilaahay uu siiyay tiri kaniyuunan ku dhaafin baytire kaniyuunan ku dhaafin markaas ay ku tiri Yusuf aqalka anigi adigoon baa ku hadhnee hayta laka bay ku tiri ee kala baytire han iska baashaalne markaas uu innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun may buuri may boqorkan aqalkan aan deganahay intuu dad iga soo iibsaday keenay ee igu koriyay igu barbaariyay reerkiisii inaan xumaan aan ula tagaa waxay noqonaysaa waa dulmi daalimiintuna ma aflaxaan buu yidhiyo sidaas aanu yeeli maayo waxay tiri laba mid baad maanta aad samayn kartaa inaa waxaan doonay aad ii samaysid ee in maaragtaan aan ku dalbada ciidan halka lagu rida hadee toole aanad ka soo bixin labadaas nabi Yusuf la soo gudboonaatay waa nin dhalinyaro ah maaha nin weyn maaha waa wiil yar oo dhalinyaro oo ku barbaaray walibana aqal boqor oo ilaahay jalla wa ala uu ilaaliyay ilaahay ba ilaashanaya qofka marka ilaahay uu doono taariikh fiican inuu ka reebo ilaahay ba ilaashanaya walakin nabi Yusuf alayhi salaam uu diiday waxa la albaabadii xidhna isma dhihin nabi Yusuf waa lagu haleelay wax walba iska sameey isma odhane wuxuu yiri may albaabka xidhan waa inuu ilaahay iga furaa dadna albaabkiibu ku orday baa leeyahay albaabadeenna ma waa albaabo waaweyn weeyaan markaas furihiina iyada wada haysto meel bay dhigatay waxayna ku leedahay waxaan doonayaa hadaad maanta Yusuf oo aad ii sameeynin waan ku sheegayaa oo waxaan oranayaa ninkan inuu farxumeeyo ayuu doonayo tamac ba iga galay hal ay qabtaan oranayaa deedna godka lagu rido hadee toole cid ku arkaysa ma jirto nabi Yusuf isma dhiibin marka ninka dhalinyarada maxaa looga jeedaa ha is dhiibin wax si kasto zamanku u adkaado oo xilliga la jooga maanta xillig adag ay tahay oo fasaadkii maanta meel walba uu galay oo fasaadkii suuqyadii uu galay oo dhalinyaradii uu saameeyay ha isdhiibina waa inaad garataa ka ku arkaayo ku maqlaayo waa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka ilaahay ka cabso Yusuf alayhi salaam isma dhiibine albaabkii qufulku ku jabsanaabu ku orday baa la yiri marale markuu albaabkan qabtaba ilaahay baa u fura waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada meel uu ka baxaan u yeelnaaba ilaahay yiri mar alle markuu nabi Yusuf albaabka uu qabtaba albaabka ilaahay waa u jabiya waa u fura hadana albaabkii labaad buu ku orday uu furmay waa todoba albaabkii todobaad markuu nabi Yusuf ilaahay uu furay wuxuu ugu tagay boqorkii ciidankii oo joogo damacsan aqalka inay soo galaan iyadii baa hadasho ku tiri muxuu noqonayaa abaalmarka la siinayo nin doona reerkaaga inuu adiga dabada uu ka farxumeeyo Yusuf alayhi salaam uu hadlo wuxuu yiri iyada ay damacsaneedo yeerinayso waad arkaysaaye aniga ma habu ku yiri Yusuf alayhi salaam maxkamad baa la taagay waxa la yiri Yusuf oo arintaasi waad ku jirtaa maanta oo adiga ayaa aqalka dhex joogay iyo iyada iyo ilmo yaro sabiya oo marka isagu aanan hadlaynin aqalka uu joogay marxaati ma haysataa maanta Yusuf oo waa lagu haystaa maanta waxa lagu cadeynayaa islaantani ay leedahay ninkan uu farxumaynayo dagaal baa naga dhaxeeyo annagoo dagaalamayna ayaad ninkuna albaabkii soo joogsateen isaguna waxa uu leeyahay may iyada ay damacsanayd buu leeyahay Yusuf wuxuu yiri ilmaha yar hal keenay buu maxkamadda waa ilmo yar hada gurguuranayo wali hadalka aanan bilaabin laakiin ilaahay buu tala saarto wuxuu yiri ilmaha maxkamadda ii keena waa la keenay ilmihi yara waa saddexda ubad ee yaraanta ku hadashay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ilmihi baa maxkamadda la keenay Yusuf ilmihi intuu tagay buu ku yiri waxa aqalka ka dhaceed arkaysan marxaatiga ka ahayd ilaahay idankiisa ku hadal buu ku yiri yarkii baa hadloo yiri qamiiska nabi Yusuf hal eego
xagga hore hadduu ka dilacsan yahayna iyadaa damacsanayd isaga ayaa damacsanaayo way iska celinaysay oo sidaasay marada uga goysay xagga dambe hadduu qamiisku ka dilacsan yahayna ayadaa damacsanadu eryanaysay isaguna nafla caarid buu ahaayo uu ka baxsanayay buu yidhi waxaa la arkay maradii nebi yuusuf uu sitay qamiiskii oo xagga dambe ka dilacsan baa la arkay sidaasuu nebi yuusuf ku badbaado ilaahay baa u gargaaray marka ninka dhallinyarada zamanka aad maanta joogtaan runtii waa zaman adag weeyaan meeshaad u baxdaba fasaad baad kala kulmaysaa laakiin haddaad ilaahay diinkiisa aan qabsanno oo salaada aan ku dadaalno oo dhaqanka fiican aan ku dadaalno oo hadigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan raacno oo waqtigeena intoon qaybinno gallina iskoolada iyo waxbarashada waalidadeenu ay nagula dadaalayaan aan ku dadaalno gallinka dambana masaajidda aan galno waayo masaajidka waa lagu badbaadaa